waxaan rabaa dardaaran yar oo kooban inaan soo jeediyo. Dardaarankood waxa waaye ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida maanta ka joogto saddex shay yaanan aqbalin inaan quusano yaanan aqbalin in lagugu celceliyo waxba ma qabsan kartid waad fashilantay waxna ma tihid waxna ku hagaagi maayaan ilaa maskaxdaada ay gasho Soomaaliya xal ma leh annaguna xal ma lihin quustaas nafta lagu gelinayo oo naftaada la aqbalsiinayana iska joojiya ina xaaladda aan ku noolnahay aqbalnana aan iska joojino xaaladda aan ku noolnahay ina aqbashid waxay ku dhamaanaysaa ina markii dambana madaxa hoos u raariciso wax allaaleeyo wixii ajnabi ku sheego ama adiga duruuftaada khaldan ay ku sheegtay inaa u hoggaansanto sadarteed ummad waxaan nahay wadaniyada laga rabay inay ilaaliyaan jiritaankooda qowmiyadeedna inay ilaaliyaan diintoodana inay ilaashadaan waxaan maraynaa marxalad aan rabo inaan si fiican u soo koobo waxa laga yaabaa inay dheeraanayso laakiin waa soo koobaya waxaan idinkugu bishaareynayaa ummadda Soomaaliyeed qowmiyadda Soomaalidu meel kasta ay kaga nooshahay maanta maalin ay ka fiican tahay ma jirto yaanan waxba niyada la idinka jabinin maanta maalin ay ka wanaagsan tahay ma jirto halbeegyo kooban aqbalaysaan oo idin tirinaya marka koowaad tacliinta 50 sano ka hor meeshaan joognay iyo maanta meeshaan joogno farqiga u dhaxeeya wax qiyaasi kartiin kulligiin inta halkaan fadhida waxa laga yaabaa in laga soo saaro 50 qof oo PhD haysata in laga soo dhex saara dhici karta nin odaya oo dhintay Allah u naxariistay Ali Khaliif Galeer baa la dhahaa wuxuu ugu yiri secondary-ga markaan ka baxay 18 arday baan ahay markuu secondary-ga dhameeyay markii dawladda dhexe ay naga dumeysay jaamacadu waxay ku yaaleen xamar maantana malaayiin ama kumanaan ama boqolaal kun oo Soomaali ah ba tacliin kala duwan qaatay waxbarashana qaatay sadarteed garaad wadadeedkeenu hadda waa caafimaad qabaa ama wuxuu u socdaa inuu caafimaado xagga tacliinta midda labaadna waxa waaye bulsho ahaan 40 sano ka hor meeshaan dhaqaalaha ka joognay maanta ma joogno geeska Afrika dadka ugu taajirsan baan nahay meelo badan baan dhaqaale ku haysanaa dhaqaalaha anaguna waa faafay 40 sano ka hor waxa laga yaabaa hal qof oo halkaan fadhiyo waxa uu haysto ragii waaweynaa oo ganacsatada ahaa inaysan haysanin oo magac lahaa Jirde Xuseen iyo Uunlaaye rag odayaal oo magacyada baa jiray waxa laga yaabaa wiil hadda 30 sano aan gaarin lacagtu haysto inay ka badan tahay lacagihii ay ragaas ay haysteen sadarteeda dhaqaale ahaana waa ladanahay waliba waxaan u baahanahay ka badan baan haysanaa hal qoys baa laga helayaa 10 qof oo midka ugu yar 2 milyan 3 milyan oo dollar uu haysto marka aniga waxaan ka fiirinayaa 40 sano ka hor dhaqaalahan haysanay iyo maanta ma ka fiicanahay waa ka fiicanahay midda saddexaadna waxa waaye tiradeena aad bay u badatay tiro badan baan helay geeska Afrika iyo bariga Afrika marka la isku daro qowmiyadda labaad baan ka noqonaynaa haddii la kala jarjaro